agaasimaha dacwad oogista dalka Nuurdin Xaaji ayaa maxkamadda racfaanka ku booriyay in xildhibaanka Sirisia John Waluke aan damiin lagu sii deynin inta laga dhageysanayo racfaanka oo ka qaatay xukunka 67 sano ee lagu riday xafiiska. dacwad oogista oo adeegsanaya Alexander Muteti ayaa garsoorayaasha maxkamadda racfaanka ee Asikiye Makhandia, Sankale Ole Kantai iyo Garais Ingenye u sheegay in xukunka lagu riday xildhibaanka uu yahay mid saxa. Waluke iyo Garais oo lagu xukumay 69 sano oo xarig ah ayaa hadda lagu hayaa xabsiga kadib markii lagu eedeeyay in guddiga qaran ee wax soo saarka iyo badarka ay ku lunsadeen adduun lacageed oo dhan 313 milyan oo shilinka dalka ahaa. eedeysanayaasha ayaa lagu helay dembi ah in lacagtaasi heleen kadib markii ay sheegeen in shirkadooda ay soo dhoofisay 40,000 oo tan oo galley ahaa. qareenka Wakule ayaa maxkamadda u sheegay in xildhibaanka uu lacagtaasi si xalaal ah ku helay. Nuurdin Xaaji ayaa waxa uu sheegay in marnaba aan la cafinaynin cid kasta oo dembi ka gasha dalkani, isla markaana lacagaha iyo dawladda canshuuraadka si qaldan u isticmaala sidii la rabay si aan ka hayn cid kasta oo u leexisa. waxaan la eegsan doonaa buu yiri maxkamadda dembi baarista iyo weliba in si cadaalad ah loo mariyo qofkaasi isaga ahaa. Nuurdin Xaaji ayaa waxa uu in badan ku celceliyay in aan marnaba laga ogolaanaynin cid kasta oo lacagaha dawladda iyo weliba loogu talagalay adeega dadka shacabka in ay musuqmaasuqaan isla markaana meel qaldan u adeegsadaan.